inagoo weli daba socona ama aynu weli ku guda jirna cashiradeenna ku saabsanaa jajabka ayaa muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa ama aynu ku dul istaagi doonaa isla jajabkiiun. Tusaale, haddii uu jajabku noocan yahay eber dhibic shan 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 soo noqnoqonaysa, yani waa 5 aan dhammaanayn, qaabkee baynu uga dhigi karnaa tiro lakaba? Ugu horreyn waxaynu odhanaa waxay noola mid tahay d ama decimal, dabeedna dhinaca waxaynu ku dhufanaynaa kun baynu dhinacan ku dhufanaynaa, oo inta gudi ka dambeysa ayaynu raacinaynaa hal ayaynu raacinaynaa inta gudi ka dambeyso ebera. Tusaale imisaa ka dambeeya 1 2 3 3 baa ka dambeeya, dabeedna waxaynu raacinaynaa 3 gud oo ebera. Isla dhinacan waxaynu ku dhufanaynaa kunkaasun labada dhinacba si ay u miisaanaato. Dabeedna xaggan haddaynu ku dhufano eber dhibic shan shan shan, haddaynu kun ku dhufano waxay noqonaysaa 550 oo inoola mida labadan haddaynu isku dhufano waxay isma bedelayaan oo aan ka ahayn inay dhiidu raacayso kunka. Malaha hata waxa qurux badan inaynu caadi iskugu dhufano, tan inaynu caadi iskugu dhufano ayaa waxaan u malaynayaa inay qurux badan tahay labadan. Okay, waa eber dhibic shan 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 ayaa waxaa lagu dhufanayaa kun. Waa eber iyo 5 baan isku dhufanaynaa, waa eber. Mar kale eber iyo 5 ayaynu isku dhufanaynaa, waa eber kale. Eber iyo 5 kale isku dhufanaynaa, waa eber. Halkaas waa 3 eber. Mar kale eber iyo waxaan isku dhufanaynaa 5, waa eber. Haddana eber iyo 5, eber kale. Tan iyo tan, eber. Mar kale eberkan iyo 5ta ayaan isku dhufanaynaa, waa eber. Eber iyo 5 kale, eber kale weyaan. Haddana eber iyo 5 kale, waa eber kale. Hal baynu ku dhufanaynaa 3daa shanaad, dabeedna waxay noo noqon 5 5 5. Hoosaynu ka xariiqaynaa 5tanaynu la soo degaynaa, eberkaasaynu la soo degaynaa marka. Waa eber, eberkan waa la soo degaynaa, eber. Kana waynu la soo degaynaa, eber. Kana waynu la degaynaa, intana isu geynaa waa 2 eber iyo 5. 2 eber iyo 5 waa 5. 5 iyo eber, 5 kale, halkana waa 5. Way 3daa gud marka iska tuuraynaa. Dabeedna waxaa soo baxaysa 500. Qaabkaas ayay ku imanaysaa 500. Haddaba dhinac kasta, dhinaca waxaynu ka jaraynaa qiimihii ay markii hore ahayd. Tusaalahaan waxay ahayd markii hore 0.55, laakiin hal mid ayaan ilownay, aynu intan masaxno. Shan boqol 550 markaynu qorno 3daa shanaad ma harayaan, dhibicda 3daa shanaad ayaa ka dambeynaya. Haddaba dhinac kasta waxaynu ka jaraynaa, halkan waxaynu ka jaraynaa hal d. Marka hal d ma qorano, qaabkaas ma qorayno, laakiin d keliyaynu qoraynaa. Waxay noola mid tahay eber dhibic 5 5 5. Aynu xariiqna markaa. Halkan waxay noqonaysaa 3 sagaalaad iyo d. Bartana waxay noqonaysaa 5 5 5. Markaynu labadan kala jarno, micnihi intana way isla baxaysaa. Halkana hal baad dhiidaasoo keliya baad ka jaraysaa kunka, dabeedna intana ku soo baxaysa. Xaggan waxaanu qaybinaynaa 999. Xaggana waxaanu qaybinaynaa 999. Haddii aad intan isku qaybiso haddaba, intan haddaad isku qaybiso waxaa kuu soo bixi qiimihii hore saxda ah. Qiimahaasa kuu soo bixi. Waayahay, haddaba aynu tusaalaha ku xiga galno.
ka waran hadday sidan tahay eber dhibic hal laba saddex hal laba saddex hal laba saddex hadday qaabkaas usoo noqnoqonayso amase ay qaabkan usoo noqnoqonayso. hore waxaynu usoo aragnay tusaale noocan ku dhow inay tusaale tan ku dhow aynu hore usoo aragnay, balse tan keliyaata waxay kaga duwan tahay kuweenii hore. intan waxay noola mid tahay eber dhibic 12 123 soo noqnoqonaya. tanna waxay la mid tahay eber dhibic 463 soo laalaabanaysa. marka tan qaabkii hore uga shaqeynaya tanna waa la mid balse waxaa jira nooc labadanba ka duwan. tii horeynu ka shaqeynayna maxay ahayd eber dhibic 555. saddexdan nooc ee dhisimaalka ama saddexdan nooc ee jajabka waxaa jira qaar ka duwan. tusaale ka waran hadday tahay eber dhibic 12 5 12 5 5 12 5 5 5 12 qaabkan hadday u qoran tahay ka hor inta waxaa la yidhaha irrational number waa tiro la ka bilaabay dabeedna uma isticmaali kartid xeerarkayna hore usoo isticmaalay oo dhan midna, sababtoo ah maba noqonayso, kuma celin kartid qaabkan a over b ama laba tiro la is hoos dhigay oo isku qaybsama kama dhigi karayno marka